بسم الله الرحمن الرحيم عبد الجبار وكو مهد علنيا ما يفكران رنتي مدشان barakaysan dood wadaagga iyo mawaadiicda muhiimka ah lagu soo bandhigayo oo lagu wadaagayana runtii waa u mahad celinayaa oo ay jaamacadda Frontier ay runtii qayb ka tahay oo ay dhiirigelinayso runtii labadaas su'aalood oo aad saartay oo la xiriira taariikhda Soomaalida haddaan dul maro dhowr qodob ayaan jeclahay inaan ku dul istaago midda koowaad waxa weeye marka ugu horeysa islaamka iyo waqtigu Soomaaliya soo galay iyo xiriirka dugsiyada quraanku ay la lahaayeen taariikhda Soomaalida dadka ka sheekeeya waxay sheegaan in islaamku uu soo gaaray Soomaaliya qarnigii koowaad dhexdiisa qaar ka mid ah culimadu waxay tilmaamaan in islaamku Soomaalida soo gaaray isaga oo aan wali gaarin Madiina al-Munawwara hijrada ka hor in Soomaalida islaamku soo gaaray oo saxaabadii u socday ama muhaajiriinta u ahaa dhulka xabashida inay ka soo degteen xeebaha Soomaalida sidaasna Soomaalida ay ku soo gaartay diinta islaamku qolo kalena waxay sheegaan in islaamku soo gaaray Soomaaliya xilligii Uthman ibn Affan radiyallahu anhu qolo kalena waxay sheegaan in islaamku soo gaaray xilligii Abdul Malik ibn Marwan riwaayadkaas oo dhan isku soo aroori waxa moodaa inay raajax tahay in Soomaalida qarnigii koowaad ba islaamku soo gaaray bulsho islaamana ay Soomaalidu noqotay haddii taa la helo marka waxa istilzaam noqday oo daba socda in halka ay ka abuurmato dugsiyada quraanka kariimka ah oo markaas xilliga hore ay bilaabato in Soomaalidu ay dugsiyada quraanka ah ay maaragtay furaan oo ay ardayda quraanka baraan iyaga oo bulshadii muslimiinta ahayd iyo iyadoo bulshada muslimiinta guud ahaan ay ka jirtay fikradda ah in laga furo madaaris quraan ah ama waxa loo yaqaan al-kataatib oo bilowday xilligii Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu dugsiyada quraanka waxa la yiraahdaa Soomaaliya laftigeeda waqtiyadaasi soo gaareen qarniga horeeyay ay soo gaareen waxa kaloo la sheegaa in culimadii ugu horeysay oo quraanka Soomaaliya aad ugu faafiyay inuu kamid ahaa Sheekh Yuusuf al-Kownayn oo hal qarni 1000 sano ka hor Soomaaliya hawshaas ka qabtay ahaana ninkii hikaada quraanka alif la kordhabay alif la hoos dhabay Soomaalida ka dhex bilaabay taasina waxay tilmaamaysaa in quraanka dugsiyada quraanka waqti hore runtii Soomaaliya laga bilaabay dhinaca tirada dugsiyada UNICEF daraasad ay samaysay 2003 waxay tilmaamaysaa inay Soomaaliya ay 13,000 oo dugsiyo quraan ay ka jiraan inay ka badan tahay waa laga yaabaa 13,000 hadii la yiraahdo dugsigiiba ilaa 100 ku dhawaad baa dhigta waa 1,300,000 oo arday ah oo dugsiyada quraanka barta ayay tilmaamaysaa waxaana dhici karta numberku inta inuu ka badan yahay taasoo ku tilmaamaysa dadka Soomaalidu sida ay quraanka u arkayeen uguna dadaalayeen in ardaydooda waqti hore ay quraanka baraan qodobka labaad waxaan rabaa inaan wax ka tilmaamo dugsiyada quraanka iyo nidaamka wax looga barto dugsi marka la eego magaca Soomaaliya weeye waa goobta lagu barto quraanka kariimka goobtaas way kala duwan tahay meelaha baadiyaha iyo tuulooyinka iyo magaalooyinka laakiin inta badan waa meel ama meel yaro ama mesela meelaha baadiyaha oo kale geed la hoosay oo ood lagu wareejiyay oo deed loo sameeyay sida anagu dugsiyada quraanka aan ku soo baranay meel tuulaaho aan quraanka ku baran jirnay iyo meelaha tuulooyinka qaar kood ama qaryooyinka yararka in maaragtay qol oo dhis ah ama maaragtay sandaqada iyo wixii la mid ah laga dhiso magaalooyinkana hadda sida badan waxa ka dhisnaa qol ama maaragtay dhagaxa ama maaragtay baraka iyo wixii la mid ah dugsigaas sidaas ayuu ahaa simplicity-ga iyo fudaydka waxyaalaha dugsiga quraanka uu ka kooban yahay oo aan cuslayn oo Soomaalidu ay heli kartay dhinaca dhismaha iyo adawaadka uu baahan yahay waxay keentay in si sahlan ardayda quraanka lagu baro oo runtii aad iyo aad ay u fududayd nidaamka waxbarashada ama nidaamka waxbarashada runtii waxa asaas u ahaa macalinka quraanka dhigayay macalinkana waxa lagu dooran jiray ama in la taskiyeeyo oo dadka doonaya macalinka inay
qabsadaan oo ardadooda wuxu baro qayb ka midihi ay maaragtay taskiyeeyaan macalinka oo yiraahdaan inaga garanayna waa nin sheekh ah oo maaragtay quraanka si fiican u xifdisan ama in la imtixaamo inuu quraanka xifdisan yahay laakiin sharti waxa ahaa taariikhdii hore Soomaalida qofka quraanka loo dhiibaya xaafid quraan inuu yahay waliba qiraa'ada Soomaalida xilligaas aad ugu faafsaneed waxay ahayd qiraa'atu duuri can abi camar ama qiraa'ada abi camar kale yiraahdo ayay ahayd inkastoo qiraa'ada xafsiga waayadan dambe ay aad u soo badatay macalinka marka dugsiga quraanka runtii loo doorto oo la imtixaano oo guuleysto kharashka siyaalo kala duwan baa loo bixin jiray dadka Soomaalida ah macalinka marka ugu horeysa oo ardayga loo keeno waxa loo keeni jiray macalinka neef ari ah Soomaalida waxay aqoon jireen fariisin marka ugu horeysa ka bacdina isku mid ma ahayn dadku qaabka paymentiga ama macalinka kharashka uu wax ku dhigayana isku mid ma ahayn meel marka qaar kood wax badan laga ma qaado marka qaar 3 biloodba mar ayaa waxa laga yaabaa in macalinka neef ari ah ama wuxuu dhigmo qiimaheeda ah in la siiyo taasuna macalinku runtii aad iyo aad ugu qanacsanaa markii ardaygu soo gaaro quraanka kala bar dhameeyo macalinka waxa la siiyaa Soomaalida meelo badan oo kamid ah neef geela hal geela oo kale ama qaarin geela haddii aan qaarin geela uusan waalidku hayna waxa la siiyaa qaalin loo aado ilaa 3 jir 4 jir ah ayaa la siiyaa meelaha qaarkood marka uu quraanka ardaygu dhameeyana sidaas oo kale iyadana waxa la siiyaa qaalin geela iyo ama qaalin loo haddii aan neef geela markaas lahayn qaabkaas ay runtii paymentiga ama macalinka kharashka uu wax ku bixinayo wax ku dhigayo ay ahayd inta waxa ka duwanaa macalinku inuu ahaa shakhsi qiimo badan oo bulshada dhexdeeda runtii laga jecel yahay macallimiinta xilliyada hore Soomaalida waxa loo arkay ninka macalinka inuu yahay shakhsiya muqaddasa oo sharaf leh oo tufku khayra oo aad loo maaragtay soo dhaweeyo oo xaafadaha quraanka dadka ku akhriyo qofkii xanuunsan loo keeno oo waliba inta badan la rajaynayo qofku ama quraan ku akhriyo ama reerku maaragtay ilmaha quraan ugu akhriyo ama ugu duceeyo inay baraka badan ay helayaan taas ayay ahayd runtii taariikh taasana waxay keenaysaa in ardayga laftigiisuna uu aad iyo aad macalinka uga haybaysto bulshaduna ay runtii macalinka aad iyo aad u jeceshahay lana soo dhaweeyo usrooyinka runtii waxay heli karayaana in ay macalinka aad iyo aad u dhaqaaleeyaan gaar ahaan xilliyada baahidu jirto hadduu maalan nin dhalinyaro yahay waxa laga yaabaa inuu xaafad qadada iyo quraacdaba uu maaragtay ku jilan yahay oo ku xiran yahay marmarka qaarkood in waalidku uu heli karaa uu si gaar ah macalinka u dhaqaaleeyo marka waxa shakhsi noocaasa quraanka waxa la yiraahdaa Soomaalida waxay yiraahdaan 5 arrimood baa lagu bartaa quraanka oo maaragtay aad iyo aad qayb uga qaadata waxa quraanka lagu bartaa waxa kamid ah yiraahdeen oran jireen hooyo qalqaalisa ah bimaana hooyo ilmaha aad iyo aad u daryeesha oo dugsiga u soo dirta oo soo maaragtay dhiirigelisa aan maaragtay wax daryeel la'aan ilmaha aysan ku hayne ku dadaashay in ilmahaasi quraanka ay soo dhageystaan oo soo akhristaan waxa kamid ah waxyaalaha quraanka lagu bartayna aaba quuris leh oo aan maaragtay bakhiil ahayn oo macalinku intuusan maaragtay ilmihiisa waxba ka helin oo yar dhibsado ilmaha wuxuu quura oo maaragtay waliba macalinka dhaqaaleeya waxa kamid ah bay yiraahdaan macalin qaari ah oo quraanka yaqaan oo xaafid ah waxa kamid ah walad qaylo dheer bay yiraahdaan arday quraanka kor u akhriyo oo aayada marka uu yeersanayo ku qayliyo kor ugu dhawaaqa taas waxay keentaa in xataa khalad haduu galo macalinku saxo ama qof kale oo dhageysanaya uu saxo iyo waxay yiraahdaan ugu dambeyntii loox qaad weyn oo quraanka lagu dhigto 5taas arrimood marka laga hadlayo xataa tarbiyada xadiisa waxay tilmaamaysaa waalid iyo macalin isku xiran oo iska warhaya oo waalidkiina uu dugsiga ku xiran yahay ama hooyadii ha ahaato ama aabihi ha ahaato ama bulshadii macalinkii iyo ardaygii iyo adawaadkii wax lagu baranayana ay runtii tahay wax aad iyo aad u diyaarsan iyo bulsho waliba wax aad iyo aad u fudud oo aan dhib badnayn qodobka saddexaad oo aan rabo
inaan tilmaamo oo runtii labadaada su-aalood soo dhexgelaya waxa dariiqada qur-aanka loo barto oo runtii waqtigaa hore ee Soomaaliya marka taariikhdeeda laga hadlayo aad iyo aad loogu soo caano dadkuna qur-aanka ku baran jireen qur-aanka laba shifti baa la baran jiray gelinka hore oo subaxnimada ah bacda salaat al-fajr haddii dugsiyada مثلا meelaha tuulooyinka ku yaala ardaydu waxay seexdaan dugsiga dhexdiisa aan waxaan xasuustaa tuulaan qur-aanka ku baran jirnay waxay ahayd geed ood ay ku wareegsan tahay iyadaan seexan jirnay haddii la soo casheeyo xaafadaha la tago waa lagu soo noqon jiray dugsiga ayaa la seexan jiray habeenkii aroorta hore marka la kici jiray waliba salaada subax inta aan la gaarin ka hor ayaa dabka la shidi jiray oo looxda la dhaqan jiray oo qur-aanka la akhrisan jiray marka labadaas shifti gelinka dambana wuxuu ahaa bacda al-casr ayaa iyadana shiftiga labaad qur-aanka la qaataa qur-aanka waxa lagu bilaabi jiray xilligaasi kaada qur-aanka kariinka alif la kordhabay alif la hordhabay ilmaha loo bari jiray ilmuhu markuu kaada barto waxa ku xigi jiray in qur-aanka akhriska iyo kitaabada in la baro ka bacdina qur-aanka loo bilaabo marka ilmaha yarkaahi uusan isagu wax qoran karin macalinka ayaa tawalin jiray inuu u qoro casharka marka ardaygu baranayo laakiin ardayda qiraa'ada iyo kitaabada yaqaana iyaga yeersan jiray markay looxdooda soo diyaarsadaan macalinku dhexda ayuu istaagi jiray marka ayuu arday walba aayadu kor ugu dhawaaqo uu macalinku u dhameystiri jiray naqmo aad iyo aad u qiimo badan oo qurux badan oo runtii aan la sawiran karin oo laga yaabo in badan oo dadkeenan kamid ah dhalinyarada inaysan arag bay ahayd macallin laga yaabo 80 qof ilaa 100 qof ka badan inay si ugu meersan yihiin oo qof walba oo kamid ah oo quraankii aayadu soo yeerisado uusan ka hakanayne wax khaladana galayna oo u yeerinayo markuu quraanka u wada yeeriyo inta kalena uu dhigo macallinku meel buu fariisanaya ardayda waa u imaanaya qof baa loogu imaanay sababtoo waxa dhici karta ardaygu yeeriskii inuu khalday ama qoraalkii khalday ama quraankii si khaldan uu u qortay ama uu wax ka tagay macallinku marka uu la saxaya quraanka marka ayuu wuxuu sameeynayaa wuxuu maaragtay fasaxaya oo leeyahay tag meel oo akhriso markaas ardaygu quraanka akhrisanaya ka bacdina markii waqtiga la gaaro arday walba macallinka ayuu uga soo baxaya ardayga quraanka aan ka soo bixinna waxa lagu ciqaabayaa inuusan quraac aadaynin dugsiga joogayo marka arday walba wuxuu ku dadaalaya inuu quraanka ka soo baxo macallinkuna marka arday walba uu ka dhageysanaya xilliyada markii quraacda laga soo noqdo kale inta badan waxa la sameeyaa subac amaba maaragtay wax la yiraahdo dareeris oo quraanka muraajaca iyo istidhaar lagu sameeyo iyaduna galinka hore sidaas galinka dambana waxay u badnayd quraanka wax la yiraahdo qarabax in la sameeyo oo ah darsiga aad bari qaadanayso in la sii akhriyo iyo subac ayaa inta badan la sameyn jiray waxaasoo wax qayb ka qaadan jireen ardaygu quraanka uu soo dhigtay ilaa meesha uu marayo ilaa inta uu maaragtay dhiganayo inuu had iyo jeer muraajacaad joogto ah inuu ardaygu uu ku hayo taasina waxay ahayd runtii qaab aad iyo aad u cajiib badan oo ardaydu ay quraanka sida ugu dhaqsaha badan ay ku bartaan subaca waa Soomaalidu hadda laftigeeda way yaqaanaan oo waa macallinku in maaragtay hooris badan uu jiro oo marka macallinku uu bilaabo qofku aayada uu akhriyo hadda wada aragtaan marka qaar meel badan laga soo saaraa laga daba hooriyo markuu aayada inteeda hore uu sheego inta badan waa lala maaragtay hoorinaya quraankana sidaas ayaa lagu muraajacaynaya qodobka saddexaad oo aan rabo inaan wax ka taabto waxa weeye dugsiyada waxa ka jira xeer hoosaad oo aan qornayn oo dugsiyada looga dhaqmi jiray waqtigaas laga yaabo hadda inaysan dugsiyada baadiyaha iyo meelaha qaarkood xeer hoosaadka waxa kamid ah hadda dugsiyada qaarkood waa leeyihiin in loo sameeyo dugsiga qof kabiir ah oo macallinka ku xiga oo ah ardayga ugu quraankana dhameeyay oo yaqaana ardaydana ah qof akhlaaq leh oo ardada maaragtay handal gareyn kara oo gacanta ku qaban kara ninkaas waa ninka macallinka ugu hooseeya nidaamka madrasadana inta badan gacanta ku haya marka kabiirku waa xeer kamid ah xeerarka dugsiyada quraanka ah ee Soomaalidu ay lahayd xeerka labaad oo jiray wuxuu ahaa wax la yiraahdo ciqaab ardayga hadduu quraanka ka soo bixi waayo ama uu sameeyo dhaqan xumo ama wax akhlaaq xumo oo dugsiga dhexdiisa ka sameeyo macallinku aad buu canaanan jiray oo u yeeri jiray waa loo duubaya marka ka bacdina urihii yararka xanuunka badnaa ayaa ardayga lala dhacaya ciqaabtaasi marka waa wax jira waxa kale ardada lagu ciqaabaa haddii ardaygu uu
dugsiga subaxdii ka soo bixi waayo qur-aankii in marmarka qaarkood quraacda loo diido oo la yidhaahdo tegi maysid akhri marka waa xasuustaa marmarka qaarkood markii quraacda laga daaho ardadu way iska qaylinayaano waxay la qayliyaan oo yidhaahdaan gaajo waa malago mudac bay sidataa dadka waa ku mudda macallimow nafasax baa la oran jiray marka macallinka marka waxay ahayd runtii wax aad iyo aad iyo oo cajiib badan bay ahayd waxaa ka mid ahaa xeerarka ardayda waliba meelaha tuulooyinka iyo meelaha baadiyaha jooga in ay casargaabkii soo aruuriyaan oo soo gooyaan ulaha uu macallinku u adeegsanayo ardayda iyo dugsiga nidaamkiisa inuu ku ilaaliyo iyo qoryaha la shidanayo waa xasuustaa markii qoraxda soo dhowdahay baan duurka aadi jirnay oo aanu qoryahaas iyo ulahaas soo guri jirnay marka waxay ahayd maqribkii baa la shidayaa ilaa iyo cishaha intaa ku dhowaad ayaa qur-aanka la muraajacaysanaya kabacdi looxda la dhaqanaya waa la diyaargaroobaya waxaa loo diyaargaroobayaa berri subax ciddii cashayn karta oo xili kartaan waa cashaynaysaa ciddii kalena waa seexanaysaa waxaa ka mid ahaa nidaamyada jiray wax la oran jiray hadda dugsiyadeenu malama shaafiin ayaa jiri jirtay oo markii dugsiga laga baxayo oo qorxadhici ay tahay la qaadi jiray بسم الله الشافين بسم الله العافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء ساسا لو قادي جري ardaygu markuu dhameeyo ardaydo dhan si cod dheer ah lagu qaadi jiray shaafiin baa la oran jiray ardaydu runtii waxay ahayd dadka ixtiraam weyn bay u hayeen oo aad iyo aad ba ardayda loo qiimeyn jiray xilliga maaragtay abaarta ay noqoto oo roob la'aan ay dhacdo waa xasuustaayo dugsiyada qur-aanka ardayda looxa qur-aanka loo saari jiray waa la soo saari jiray faqultu istagfiruu rabbakum inahu kaana gafaaran yursili samaa calaykum midra saasaan qaadi jirnay waa la wareegi jiray inta badan roobka waa imaan jiray sababtoo dadku xalaal u cuni jiray alxamdulillahi rabbil caalamiin waxay ahayd markii ardaydu sidaa ay u maraan oo ay sidaas istikfaarta iyo ilaah u baryaan inta badan ilaahi subxaana wa tacaala roobka waa u keeni jiray ardayga marka uu qur-aanka jus dhammeeyo ciddii wax heli karta waa loo ducayn jiray macallinka iyo ardayda weliima loo samayn jiray markii weliimada la sameeyo macallinku qiblada u jeesan jiray ardayga wuu u ducayn jiray ardayduna way aaminin jireen wax aad iyo aad runtii waana wax naga maqan hadda xilliga kan ardayga dugsiga loo diraa wax kaloo dana lagama galo laakiin xilliyadaas waxay ahayd yani wax la dareensanaa ardaygu ducada macallinku inay mubaarak tahay oo ardaygu ku barakoobayo oo arday fiican uu noqonayo macallinkuna wuxuu ahaa runtii mithaal yuqtada bih lagu daydo oo ardaygu u arkay shakhsi dahiran oo nadiif ah oo inuu ku daydo ay tahay buu ahaa runtii xilligaas iyada ah marka taasina waxay ahayd waxyaalaha oo runtii aad iyo aad aan u xasuusto waxaan halkay ku soo aruurinayaa dugsiyada xiliyadaas qadiimka runtii waxay ahaayeen wax lagu baranayaa wax fudud bay ahayd qur-aanka waxa lagu baranayaa oo la adeegsan jiray wasaa'isha ay ka mid tahay loox iyo qalin iyo khad intuba waxa laga keeni jiray environmentiga kugu wareegsan looxa geedaha laga soo qori jiray looxyo waaweyn oo nadiif oo la hagaajiyey oo si fiican loo qoray qalinkana waxaa laga soo qori jiray geedaha khadana waxaa laga keeni jiray ama xabag iyo biyo la isku daray ama caanaha marmarka qaarkood qoloba si ha u taqaano asqaan qolo u taqaana qolo khad u taqaana adigu waxa weeye carabtuna midaad bay tiraahdaa marka waxyaalahaas maaragtay environmentiga dugsiguna ama waa dhis ama waa geed weyn oo la hoosay oo deyd loo sameeyey marka waxay ahayd wax aad u fudud dadka Soomaaliduna runtii aad iyo aad bay u ilaalin jireen dugsigaas meel kastoo ay joogaan marmarka qaarkood dadka waaweyn laftigoodu haddii qof fursadu ay dhaaftay wuxuu ku dadaali jiray in uu dugsiga qur-aanka wax ka barto waxay dhihi jireen marka yani hashaadana ilaasho qur-aankaagana baro bay dhihi jireen isagoo qofku geeliisii iyo xoolihiisii ilaashanaya ayuu qur-aankiisa baran jiray waxyaalaha simaadka xiliyadaas dugsiyadaas ay lahaayeen waxay ahayd oo ay gaarka la ahaayeen gabdhuhu kuma badneed inta badan lama geeni jirin yani waxa dugsiyada noocaasa u badnaan jiray waxay ahaayeen oo waxa weeye waa cuyuubta ay lahaayeen inaan haweenku inta badan ama gabdhuhu
aysan ku badnayn dugsiyada qur-aanka. Anigu waxaan xasuustaa dugsigaas aan baran jirnay xilli dambe uu ahaa oo waa macalinkan qur-aanka ka bartay 74 waan xasuustaa, hal sanaan qur-aanka ku xifdiyey. macalinkaas dugsigeenaas hal gabar ima dhigan jirin, waxa dhigan jira oo dhan waxaan ahayn wiilal baan ahayn. marka wuxuu ahaa jawigaas jawi runtii qur'aani ah oo aad u qiimo badan. ma jirin wax malhiyaad ah oo sidii sheekh mukhtaar uu ka sheekeynayay ardaygu ku mashquulo. ardaygu ama qur-aanku akhrisanaya ama maaragtay hadduu u badan yahay waxaa laga yaabaa geedaha iyo in laga boodboodo oo cayaar haddii waqti uu u helaba. wax kale oo jiraa ma jiraan. habeenkii nal ma jiro, faynuus ma jirto. waxaa laga yaabaa in xoogaa qoryaha iyo dabka inta la shito cabaar ka bacdina meel walba waa mugdi. qofku wuxuu ku mashquulayaa marka qur-aankiisa inuu xifdiyo. environmentgaas environment cajiib badan oo wuxuu ahaa runtii dadka u sahlaynaya qur-aanka. laakiin waxaana la bari jiray wuxuu ahaa lafdiga qur-aanka, waana sida ay tahay oo soomaalidu u badan tahay, waana ceebaha ay dugsiyadaasi lahaayeen. laakiin haddana marka si loo fiiriyo yani jawiga iimaaniga ah ee la socday macalinka iyo qaab dhaqankiisa iyo dugsiyadaas, waxaad moodaa dhaqanku inuu wax badan ka duwanaa dhaqankan hadda jira. marka runtii taariikh waxay ahayd aad iyo aad u macno badan. intaasaan rabaa inaan kusoo aruuriyo. aad iyo aad baa umahadsantihin. asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.